أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو كورسكين جافا سكريبت أنت عشر كنا نحن قولي كنتونا intaana horta course-kan JavaScript ama koodkii ugu horeeyay qorin waxa lagaga baahan yahay basic HTML-ka kama maarmayno waayo JavaScript-gu HTML-kaas ayuu embedded baan ku sameynaa uu si qurxinayaa marka HTML-ku waa muhiim inaad taqaaniin walibana aad inaad u sii taqaanaa advanced tahay maaha muhiim laakiin basic ee koodka inaad fahmi karto HTML-ka waa muhiim hadana koodka HTML soo dhigan dib u noqo HTML-ka soo dhigo waxa kale oo baahantahay code editor like sida Sublime, Notepad++, Brackets, Visual Code kuwaas oo dhan baa u baahantahay mid ka mid ah baa u baahantahay hadanaad kuwaas oo dhan haysan Google-ka ka heli kartaa waa fudayd Sublime-ka Notepad++ka anigu Notepad++ baan isticmaalayaa aduu ka doonaysid isticmaal laakiin waa fudayd waxa kale oo baahantahay web browser-na waa web browser kulli oo wada haysataan waxa kamid ah Google Chrome-kan iyo kuwa badan ee kale Mozilla waxaas oo dhan baa kamid ah marka web browser code editor sida Sublime Notepad++ iyo inaad garanaysid basic HTML-ka insha Allah waxaas oo dhan code editor-ka Google-ka ka soo download gareysan kartaa web browser-kana waad haysataa marka insha Allah cashirka xigana toos baan u geli doonaa laakiin maanta waa inaad inta garanaysid HTML-ka iyo code editor haddaad code editor aanad haysan waad searching gareyn kartaa Windows-kaaga marka search waxaad ku qortaa Notepad-ka lagu soo sameeyay kaasna waad isticmaali kartaa hadana doonayna programmer si aad u noqotid waa inaad Notepad-kan kuwan caalamka kuwaas waa inaad isticmaasho cashirka maanta intaas uu noogu joogayaa inta introduction-ka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.